saaxiibayaal soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay deegaanka Dawacaaley ee ka tirsan gobolka Faafan oo maalmo ka hor dagaalo aad iyo aad u culus ay halkaas ku dhaxmareen ciidanka New Police ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidamo hubaysan oo ka soo gudbay dhinaca Soomaaliland xogihii ugu dambeeyay ka soo kordhay deegaankaasi gacan ku hayntiisa dagaaladii maalmo ka hor halkaas ka dhacay kadib abaabulka ciidan ee laga dareemayay sidoo kale xogo dheeriya oo ka soo cusboonaaday halkaasi ayaa qodobkeena koobaad ku dul istaagi doona qodobkeena labaad golaha guurtiga ee maamulka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay ansixiyeen ama ay saareen guddi la sheegay in loo saaray xaaladda deegaanka Dawacaaley waa golaha guurtiga ee maamulka Soomaaliland deegaanka loo saarayo guurtidana waayo guddiga loo saarayo waa deegaanka Dawacaaley oo ka tirsan degmada Xarshin gobolka Faafan dawladda deegaanka Soomaalida hadaba Soomaaliland maxaa ka quseeya deegaanka Soomaalida maxay tahay sababta guddiyada loogu saarayo golaha wasiiradu mar walba uga hadlayaan ee ciidamada loogu soo daadguraynayo maxay tahay sababta maxayse ka ogaayeen Soomaaliland ciidankii hubaysnaa ee gudaha dawladda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta iyo ciidanka New Police ku laayay waa dul istaagi doonaa iyadana waxaan dhanka kale to iyadana mid iyo labo ka dul istaagi doonaa heshiiskii labadii wafti ama labadii mas'uuliyiin ee kulmay ee jigjiga ku kulmay waftigii Soomaaliland ee xukuumadda oo diray Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale to mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida waxyaabihii lagu heshiiyay maxaa ka dhaqan galay maxaa se dhaqan gali waayay iyadana waan idinka dabageynayaa arrimo halis badan baa soo socdo suurtagal ay tahay in Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalidu madaxa ay isgeliyaan oo ciidan laba maamula oo sax ah hadda waa in directie yay Soomaaliland u maamulaysaa si sax ah in fooda la istaro arrimo sababi kara ayaa halka iyadana ka soo socda waana dul istaagi doonaa dhinaca kale to ganacsigii Hargeysa ku xidhnaa ee dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida oo isagana gabi ahaanba u wareegay dekada Garacad iyo sidoo kale to deegaanada dekadaha Puntland baabuurtu si istaba jooga ayay uga gudbayaan magaalooyinka xadka dhaca ee dawladda deegaanka Soomaalida sida Wardheer iyo sidoo kale to magaalooyin kaleba wadooyinka baabuurtii waagii hore wajaalayti ka gudbaan ka soo qaadi jiray berbera rarka waxaa rarkii loo weeciyay oo hadda ay u doonanayaan dekada Garacad iyo Boosaaso halkaas oo ayadana fursad muhiim ah ay ka heleen bulshada reer Puntland waa dul istaagi doonaa iyadana dhabarjabka dhinaca ganacsiga ee gaadhay maamulka Soomaaliland ama beelaha idoor faa'iidooyinkii faraha badnaa ee ay ku qabeen dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida oo u wareegay koonfurta Soomaaliya iyo deegaanada Puntland soo dhawaada muuqaalka like saar aragtideena nagu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownee deegaanka Dawacaaley waxaan ogsoonayn in maalmo ka hor dagaal xooggan oo ka dhacay oo u dhaxmaray ciidanka New Police ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidamo hubaysan oo ka soo gudbay dhinaca maamulka Soomaaliland muddooyinka ugu dambeeyayna lagu diyaarinayay deegaankaasi Dawacaaley oo ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan dagaal culus kadib oo maalmo dhacay waliba isku xiga kadib ciidanka New Police waxay gabi ahaanba cagta mariyeen maleeshiyaadkii ka soo gudbay dhinaca Soomaaliland waatii wax la diliyo wax la qabtiyo wax cararo laga dhigay in ka badan 200 ayaa halkaasi looga dilay maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dadka deegaankan ay isku sheegayay waxba kama jirin ee ka soo gudbay dhinaca Soomaaliland intaasi markay dhacday kadib abaabulku wali waa socdaa hadallada iyo sidoo kale to colaada kicinteedu mas'uuliyiinta siyaasiyiinta xukuumadda Cirro iyo sidoo kale to mas'uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay Soomaaliland ganacsato odayaal dhaqan dhammaantood ba kicinta colaado wax joogta ayay u ahayd oo waxa ka socda baraha bulshada ogaadeen aan iska celino aan dagaalano kaca qoriga qaata gala dadka la xasuuqay waxyaabo hadallo noocaas ah oo aan sal iyo raadna lahayn waxana u tareynin dadka degan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida intaas kuma aysan kaanin xukuumadda Cabdiraxmaan Cirre maanta golihii guurtigu intay fariisteen ayayba guddi soo saareen oo la leeyahay guddi bay golaha guurtigu u saareen xaaladda deegaanka Dawacaaley bal adiga dulmiga intuu leeyahay
bal adiga daandaansiga eeg, bal adiga jahwareerka siyaasadeed eeg, bal adiga ceebta meesha taallaayi eeg. fiiri bal adu waxaan golihii guurtiga ee maamulkii somalilan baa intay fadhiisteen bayba guddi u saareen xaaladda deegaanka dawacaaley. oo dawacaaley xaggee ku taallaa? waa xudunta gudaha deegaanka soomaalida. xaggee ku taallaa dawacaaley? somalilan ba? maya, somalilan ma aha, was deegaanka soomaalida weeye. degmada xarshin baa laga xukumaa. waxay ku taallaa inta u dhaxaysa xarshin iyo yowcaale, gobolka faafan iyo jaran inta u dhaxaysay ku taallaa. waa deegaanka soomaalida ah. iyagoo qirsan arka bay haddanana waxaa meesha ka socoto wax saansaantiisa markaad fiiriso dagaalo ahliya inuu dhaco oo lagu maryo dhiigla la kala furto inuu dhaco sabab u noqon doono haddaysan joojinin maamulka somalilan faragelinta qaawan iyo sidoo kaleeto daandaansiga deegaanka soomaalida ay daandaansanayaan. arrintan markii hore waxaa la moodayay kooxo ergagixisaa oo ayagu iskood isku abaabulay. wayba ka dartayoo xukuumaddii iyo maamulkii ayaaba daba socdaba oo ciidankan la soo geliyey iyo kii hore iyo midkan hadda la keenayaba waaba arrin ayba xukuumaddu ka dambaysaba. waaba arrin xukuumaddu ay ka dambayso. way caddaatay marka arrintan way caddaatay. arrin shiki ku jira ma aha. arrin waxaa weeye adeer layska indhatiri karana ma aha. waa duulaan qaawan oo beelaha isaaq ee somalilan maamulo ay ku soo qaadeen gudaha dowladda deegaanka soomaalida. way iska caddaay kooxahan argagixisadana horeyna waan idinku sheegay. ta koonfurtana way maalgeliyaan oo talay ku leeyihiin. middanna maanta waaba kaasoo gudihii dowladda deegaanka soomaalidaba laysku soo qaawinaya oo waxa weeye guntiga loosoo waxa marada loo soo faydfaydanaya oo isku dayna laga sameeyey haddana loo soo hub urursanaya. golaha guurtiga ee maanta fadhiistay ee odayaasha maamulka somalilan waxay waxa weeye magacaabeen guddi. xaaladda dawacaaley baan guddi u saarnay baa layidhi. waayahay xaaladda dawacaaley guddi hargeysa laga saaray wax ma ka qaban karaan? wax ma u tari karaan? maya, waxba uma tari karaan. way uga sii darayaan xaaladda halkaa ka taagan. way uga sii darayaan dadka shacabka inay deegaanka nabada ugu noolaadaan. way uga sii darayaan in waxa weeye isku socodkii iyo sidoo kaleeto bulshadu ay wax wada cunto sidii hore ay ahaato ayay uga sii darayaan. taas bay uga sii darayaan. taasba horta tallaabadaas bay xukuumaddii ciro qaaday. deegaanka soomaalida war baa looga fadhiyaa. maamulka inuu cagjar uu hogaamiyo mustafa cagjar war baa looga fadhiyaa. daandaansiga somalilan ay wadaan iyo dulmiga ay wadaan war baa looga fadhiyaa. jawaab ayaa looga fadhiyaa oo shacabka deegaanku ay u fadhiyaan. haddiina cagjar uu jawaab bixin waayo dee waa lala xisaabtamaya. isagana waa lala xisaabtamaya. ismabayn qarinin bay door. hadday siyaasi noqdaan xildhibaanadii bahladii waxaa leeyahay guurtigii, hadday noqdaan golihii wasiirada, hadday ismaba qarininba banaankaa laysa soo dhigay. ogaadeen baan iska celinaynaa, ogaadeen baan iska celinaynaa, ogaadeen baan warhaadhe ogaadeen ma dhul buu kugu haystaa? war ogaadeen ma dhul buu kugu haystaa oo isii ku leeyahay? ogaadeen waa dowladda weyn, isagaa xukuma. inta la deganay soomaalidana mas-uul buu ka yahay. amnigooduu ilaaliyaa. hadduu noqdo dir iyo hadduu noqdo daaroodba waa iskugu mid. ciisay shalay ku dhammaanayeenoo eber ku baxeen oo taliyaashii iyo raggii ugu qiimaha badnaa ay ku dhammaadeen iyagoo difaacaya. war adiga ogaadeen adiga ismaba soo gaadhaane maxaa kaa quseeya? maxay tahay sababta somalilan maamulkaas yar ee waxa weye qoqobka ku jira, qoqobka ee dhinacna bad kaga wareegsan tahay dhinacna daarood ka taagan yahay, sababta ay usoo tafaxaydanayaan xilligan ee ay u leeyihiin ogaadeen baan nagu soo duuloon la dagaalamayna? waa yandaro inteeda leeg. shacabka deegaanka iyo xukuumaddiisaba waxaan leenahay hala diyaar garoobo. waxan waa wax lagu talagale wixii laga dheefay leeyihiin hala diyaar garoobo. dhinaca kaleeto dagaalkan dawacaaley dhacay saamayn badan buu idoor ku yeeshay. durba qayladaa isqabatay. wow ganacsigii tag, dadkii tage, dukaamadii xidhnay, waan xidhaynaaye baa yeedhaysa. ganacsigii deegaanka soomaalidu waxa uu u dhaqaaqay bartaas iyo puntland buu aaday. gawaadhidu saasay isku daba fadhiyaan. magaalo wardheer la yidhaahdo xaqeedii baa horta dilaacay. xaqeedii ayaa dilaacay. markii horena iyagaaba isdulmiyey oo dadka deegaankaabaa isdulmiyey inay ku xidhaan garacad
iyo boosaaso ganacsi hadda la sameeye boosaaso oo ganacsigooda halkaas ay geystaan ayaa la rabay markii horeba ma aysan samaynina bartaayay door bay ku xidhnaayeen laga soo wareeg gawaarida halkaa bay sii qulqulayaan dekad baa hadda ka dilaacday meesha la yidhaahdo Wardheer iyo magaalooyin badan oo lamid ah ganacsiga koonfurta iyo wuxuu aaday meesha la yidhaahdo Eken Puntland buu aaday dadkii xaq u lahaa marka horeba iyaga xaq u lahaayeen ayaa hadda iyo ganacsiga u soo laabtay horta hambalyaan leeyahay shacabka reer Puntland waliba shacabka majeerteen baan toos rabaa inaan ula hadlo majeerteenku xogaa way yar faanfaan badan yihiin ilmaadeeryaalow dadka soo dhaweeya oo faanfaanka ka daaya oo waa walaaladiina gacan fura ku soo dhaweeya oo qiimaha iyo becshirada dejiya hoos ka dhiga hadday noqdaan gawaarida anigu hadda ka hor baan boosaaso gaari ka soo iibsaday laba gaari ka soo iibsaday oo basasan ka soo iibiyey xoogaa waxa weeye qiimahoodu way igu yara sareeyaan oo doorkaas aan rabin inaan aadaban laakiin xagga markii dambe ku khasbanaada boosaaso inaan tago marka balbaasha dejiya qiimaha ha la dejiyo hoos ha loo dhigo becshirada weliba dadka imaanaya ee ogaadeenka xagga ka imaanaya anagu hoteelada wax neceb baan inaan seexanee inta badan dadku iska reer guuraabay u badan yihiin xaafadaha u goglo soo dhaweeyo oo ragga dejiya qaarkood oo ganacsatada u guuriyo oo waxa weeye bulshada soo dhaweeya bulshada ha la soo dhaweeyo meeshu qoomiyad ma yahay waxa ka soo socdee waa dawlado waxay ugu soo jabay dawlado waad ka faa'iidi doontaan idinkana barwaaqaad ka heli doontaan laakiin idinkana hay xoogaa waxa weeye faanfaan iyo arowkan muxuu ahaada ka daaya hala soo dhaweeyaan leeyahay hambalyaan leeyahay waa guul weyn dhinaca deegaanka Soomaalida iyo dhinaca Puntland waa laga faa'iidi doonaa ilaa iyo SSC-ba faa'iidooyin badan baa laga heli doonaa isdhexgalka bulshada ganacsigaasi quwadda leh ee xaggaasi u soo jabay ee dekadahaasi soo fulayna faa'iidooyin badan baa labada dhinac bay ugu jirta hambalyaan leeyahay hala soo dhaweeyay insha Allah ta'ala horay baan anigu shacabka deegaanka Soomaalida dagaalkii la sacaanood markuu bilowday baan qaylo bilaabay war ganacsigiina soo jeediya war ganacsigiina soo celiya war ganacsigiina boosaaso saara war ganacsigiina halkaa iyo koonfur saara war ganacsigiina waxaad wax ka keensan kartaan xataa Kismaayo ka soo guura nimankaas cusuriyiinta ee doorka ka soo guura baa horaan naaydi laakiin hadda haddii ganacsatada anadoo ay garwaaqsatay way ku mahadsan yihiin